بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني. dhibta ka jirtana dadkeedaa geystay. dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eedda saaraan. dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Ethiopia ayna jebisay, waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan gaalada aynoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriiska mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinayaan. waxay jecel yihiin inay dowladaha jaarka ee China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwanba ayna baabi'iyey. waxa kama jiraan runaan isu sheego innagaa isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay. waana sida caadiga bini aadamku u fakaro. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay waa doqonnimo. Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii ugu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wada hadaan maslaxadii ugu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo Maraykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan hadaan dan ugu jirin. Nabi Muhammad iyo saxaabadii markay jabeen lama odhan Khalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idin kaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idin la dhigay lama odhanin. markay jabeen markay iyagu taktiigii nabiga khilaafeen ayuu Khalidna godololada arkay dabeetana uu ka faa'iideystay. Khalid oo gaala ayaa wuxuu arkay godololada dabeetana meeshii dalashu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay. dabeetana saxaabadii waaweyneed la yaqaanay nabiga adeerkii iyo markii la dilay Xamza iyo raggii la mid ah dhulka loogu tuuray markay muslimiintu yiraahdeen anna haadana ilaahay baa u jawaabo wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum. مالك بن النبي nin la oran jiray caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu oran jiray isticmaarku ma aha mushkiladii waa qaabiliyatu isticmaar bulay ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa bulay gumaysigu weelkii buu iska jiray cid rabtay in cid gumaysata way iska joogtay dee nin la gumaysan karo baa la gumaystaa. Soomaaliduna maxay yiraahdaan miskiin baa miska la fuulo leh markaad miskiinka noqoto ayaa dadku ku kooraysanaya. marka Soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas laakiin dhibta Ethiopia ku hayso mise Kenya ku hayso mise Maraykan baa ku haya mise Caynkan baa ku haya waa dhibta inaga isku hayna inaga isjabinay inagana wali istilayna inagana rabna wali inaynu kala guurno inagaan tuulada ku xigta heshiis la ahayn tuulada ku xigta heshiis lama ahayn inay ka guurtaa bay doonaysaa. marka haddaynu inagu aqal keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa waddankeennina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa. haddaynu aqli keeni weynana dee waa layna gumaysanayaa. adeer ninkaan tashanaynin dee waa loo taliyaa. carruurta yaryar ma tashan karto marka waa loo taliyaa. reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badh baa wisaaya u baahan isma maamuli karaana in la maamulo u baahan. marka ergeyga jamciyadda quruma ka dhaxaysa laynoo soo dirayaa siduu inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay waxa saxayeen iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino dhaano askartiina wax ma yeelin qoladaasina wax ma yeelin oo la yiraahdo fanka la idinku darayaa projectka sanadka dambe EU-da idinku daraysa ama USAID baa la idinku daraya. warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. warsi masaakiinta ku dhargi lahayd hadii cid ku dhargayso miskiinkan yaa la waxsiiyeen haya inuu sunbul haya la waxsiiyay. marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulay dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo adeerka iyo ka sii dambeeyaan istoonaynin. haddaynu inagu aqligu lagu wada noolaado keenno gaaladu waxay yiraahdaan saddex dariiq baa jiro oo bini aadamku uu kala baxo. bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yiraahdo nabad waa lagu kala baxaa.
bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yidhaahdaan intuu isu yimaado inuu heshiyo yidhaa war balanaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka tago annaan wax ka tago meel dhexaan isugu nimaadna hore u soconnana wuu kari karaa bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa war heshiin weynaye ha laynoo gar qaado ilaahay kitaabkiisaa cid inoogu saar inoogu gar qaada marjaca waxa laysku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garrannoo kala baxno haddaynu soomaalinay saddexdee midna ma ogolin inaynu iscafino oo iska wada noolaanno ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garranno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquuninno inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabado yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi karaa maalin marka laga yaro dabaabada roonaada inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waan halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 60 sano ama 30 sano la sheegay saw baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaallayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliya waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu a'lam وتدبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتدبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي